xarunta maxadka diiniga iyo barashada shareecada islaamka ee Daarul Mustafa ayaa waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay maxadkaasi cusub ee Daarul Mustafa waxaana munaasabadani ka soo qayb galay waalidiin ardayda wax ka baran doonta maxadka Daarul Mustafa macallimiin iyo marti sharaf kale waxaana ayada quraana kadib halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada Buuhoodle iyo maamulka maxadkaasi kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda maxadkani uu ku soo kordhin doono deegaanka Buuhoodle. waalidiinta ardayda macallimiinta dhammaan xafladan qiimaha badan ee lagu daafurayo macadka Daarul Mustafa oo ah dugsi dhexe hoos tagayana Imaam Nawawi dugsiga sare qaybta shariicada. dhammaantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. marka waxaan u soo jeedinaynaa waalidiinta in ay waxa weeye ku dadaalaan waxbarashada oo macallimiinta la socdaan oo ka warhayaan oo ilmaha ka warhayaan oo waxa weeye tiifiyada guryaha wada yaala ee waxa weeye hooyooyinku ay dhahayaan waan ku mashquulinaynaa carruurta tiifiyada inay ka daayaan. marka waxbarashadu waxa weeye waa muhiim aakhiri adduunna qofka ugu waayayaa. waxaan soo jeedinaynaa in aad dadaashaan oo waxbarashada ku dadaashaan. annagu haddaanu nahay macallimiinta macadka Daarul Mustafa waxaan laga doonayaa waajibkayaga wixii macallin ahaan naga beegan inaanu ka soo baxno oo ay ka mid tahay dad aqoon leh oo aanu soo saarno, dad tayo leh oo aanu soo saarno, dad midho leh oo aanu soo saarno. badanaa waxaa farxad inoo ah inay halkan ku bartaan carruur aad u tiro badan, carruurtaas oo ah kuwii soo kacaya jiilka waddanka, kuwaas oo la baro culum kala duwan oo la baro waliba aad loo baro culumta shareecada islaamka oo carruurta waxaa mahmaha carabiga baa waxay ahayd العلم في صغر كنقش في الحجر. معدك Daarul Mustafa oo معد هذا فرنا دور بلاد لكن ما أنت أي تهاي حفلتي بلوغا هيدا وجوه رئيسي أي نوفردينه كنتي ومعد الذي كروا أهدافتي الله أساسي إلهي سبحانه وتعالى بر بدنا وكمل هذه سورة جلية وأيه ما أنت واحد يقطع وحاضرة وقال عرضي وحكي بدن وإلهي سبحانه وتعالى مهدي ويه وأنا رجدي أنا قبني مالكي أنا ما حد كان بلابني أنا هندي سنوي معد كني ومعد علوم الشريعة على قبرته وحنا إن شاء الله تعالى ولا ليال المهن وما أنت هذين كبر بارينه تعليمات كإسلامية أو أبوه الرئيسو برشاد القرآن الكريم كه برشاد الشريعة الإسلام وحوي المهن أسوق نقوم دونا من مستقبل كاد فائدة ويكهشة كو المها أصبحت كه لسوالد وبريت مركز ويناته نقوم دونا المح حقوق ذاتية لعنه لكن علمي هذا وحبرنين هذا وحبرين فبريت نقوم دونا قف سوقات شوقة وبلا إسكده أو هذيك حقوق دولة مويه هذا أتكأمن ويدو أدمارتي كبحسن ويدو هذيك والد كواها سيدا إن ما أنت إن بدن عرق بيوي وعسى وحويه ما دام أي تعليم ماشو أي تهاي وحلاقة ربابك وحبران أيه هدي وصل وحبران أو وحبرشة يسكون دارين أو وصل مستقبل كشيل وصلوا قادين مسؤولية صدق منهم بقبقاس النقطة قبقى هدو وصل وحبران صدق داو مدهان نقطة يا وحوي قبقاس إنه توق نقطة إنه تنكررتان نقطة إنه توق صدر نقطة تعليم تقبقى هدو تعليم يا شقال كيس يا مسكح نصايو ماليا لكن هدو تعليم يلم وايو أما توق بنقطة أما تنكررت نقطة يا حمال بقول تدك وربا عبد العزيز هذا جامع كالسن تي في بوهولة.